وما سنتهي سيدي لغو بلبada maanta ay taariikhdu tahay 22ka bisha waxa qabsoomaysa doorashadii madaxweynaha ee Jubbaland waxaana saaki diira diyaargarowgii ugu dambeeyay ee doorashadaasi la filayo inay maanta dhacdo hase yeeshee magaalada Kismaayo iyo amnigeeda guud ayaa waxa uu xalay ahaa mid aad loo adkeeyay iyadoona wax gaadiid ah ay magaaladu dhaqdhaqaaq ka sameyn karin sida gudiga amnigana ay hore u shaaciyeen magaalada ayaa waxa markaa dhammaan la xiray xuduudeeda iyadoona goob walba xalay ay ahayd magaalada in ay ciidamo joogaan hase yeeshee waxa markaa jirin hataa dhaqdhaqaaqii dadka isku socodka aad buu xalay u xadirnaa waxa sidoo kale jiray in magaaladu ay guud ahaanba xalay ay buux dhaafiyeen ciidamada kala duwan ee Jubbaland hase yeeshee xalayna iyadoo guud amniga sida loo adkeynaya ayaa waxa hadana dhacday in meel kamid ah xerooyinka ciidamada ee gacmeed lagu turo ilaa iyo hadana ma jirto wax faahfaahin oo laamaha amniga ay ka bixiyeen hase yeeshee guud ahaan amniga ayaa saaki hadana waxa uu yahay mid aad loo adkeynaya gawaaridii BLada ayaana shaqeynaynin dadka ayaa caadi isaga lugeynaya laakiin hayeeshee waa isku socodka dadka xitaa waxa uu moodaa inuu xadidan yahay hase yeeshee dhinaca kalena iyaguna murashaxiinta la magac baxay isbedel doonka Jubbaland ayaa iyaguna hore u shaaciyay in ay qabsanayaan doorashadooda madaxweynaha ayna ku dhawaaqayaan madaxtinimadooda maanta sida marka magaalada Kismaayo ayaa waxa ay yeelan doontaa hadii maanta labadaasi group ay ku kala dhawaaqaan laba madaxweyne ay yeelan doontaa dadka shacabkana ayaa walaac ka muujinaya xaaladda markaasi ka soo cusboonaatay magaalada Kismaayo iyadoo ay ku sheegayaan inaysan ahayn markii ugu horeysay ee marka xaaladdan Kismaayo ay gasho waxa ay mararka qaarna ku dhawaajinayaan in magaaladu ay yeelatay 6 madaxweynayaal sanadkii 2013 taana ugu dambeyntii ay sababtay in gacan la isula tago oo dagaal uu magaalada ka qarxo dadkuna waxa ay dhinaca kale ku sheegayaan marka aad xog wareysatid in ay ka baqayaan sidii waagii hore dhacday in ay haatan dhacdo gudiga doorashooyinka ee marka baarlamaanka laga dhaxulay oo iyagu maanta qabanaya doorashada madaxweynaha Jubbaland ayaa iyaguna waxa ay noo xaqiijiyeen in ay maanta dhacayso doorashada waqtiga loogu talagalay ay murashaxiinta soo galayaan howlka sida ay noo xaqiijiyeen 9 subaxnimo ayay markaa murashaxiinta howlka soo galayaan ilaa iyo 10 barqanimada doorashada ayaa si toos ah u bilaabanaysa sida ay shaaciyeen sidana ay markaa jadwalka ku wadaan sida ay shaaciyeen gudiga doorashooyinka hase yeeshee guud ahaan magaalada ayaa haatan degan wax culays way hadaniyo marka ugu dambeyn dadka qaar waxay ku soo waramayaan in ciidamo gaar ah la dhigay halka ay ku sugan yihiin musharaxiinta mucaaradka ee isbeddeldoonka la baxay warkaasi maxaa ka jira ilaa iyo haatan warkaasi wax ka jira ma jiro hase yeeshee laakiin magaalada goob walba waa ciidan xaafadahana ciidan ayaa ku jira magaalada banaankeedana ciidan ayaa jooga hase yeeshee laakiin midda ku saabsan dhinaca murashaxiinta ilaa iyo haatan xaqiijin looma hayo hase yeeshee laakiin gudigaas oo iyaguna doorashooyinka ay samaysteen ayaa waxa ay ku adkaysteen in ay sameyn doonaan madaxweynahoodu ay ku dhawaaqi doonaan guud ahaan magaaladu laakiin waa ciidan goob walba aad markaasi tagtid xitaa xaafadihii qaar ay magaaladu ciidanka ku jiraan ciidamo gaar ahna ayaa maanta shaqeynayo